بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد maanta waxaan jeclahay inaan idin siiyo hadal yar oo guubaaba ah oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay dhiig bixinta ama dhiigsiintu. waxaan jeclahay inay bulshadu ila dareento muhiimadda ay leedahay in qofku uu isagu isxilqaamo oo garto inuu qofka kale ma garanaysaa walaalkii ah ee dhibaatadu la soo gudboonaatay ee caafimaad darrada la kulmay ee shilka la kulmay ee dhiig si joogta ugu baahan inuu qofku garto inuu dhiig ugu deeqo. si haddaba aan ma garanaysaa idin dareensiiyo muhiimadda ay leedahay dhiig bixintu, waxaan jeclahay inaan araar yar oo kooban ku bilaabo hadalkayga. tusaale ahaan waxaan idhaahdaa mararka qaarkood maxaa dhici lahaa, bal qiyaas ama suure aabbahaagii aad jeclayd, hooyadaadii aad jeclayd oo xaalad caafimaad darre la soo gudboonaatay, ay qasab noqotay in qalliin loo sameeyo, qalliinkaasi loo fuliyana ay muhiim tahay in dhiig lagu shubo. bal suure saaxiibkaagii aad jeclayd, saaxiibadaadii aad jeclayd oo la kulmay ma garanaysaa shil gaari, dhiigbax ku yimid, kadibna ay muhiim tahay in dhiig lagu shubo. way adag tahay xaaladahaasoo kale, ilaahay kuma keena ama naguma keenee inaad suurayso dareenkaagu sidii uu noqon lahaa. waad jeceshahay inaad dadkaa guud ahaantood aad ma garanaysaa saacido u gargaarto, kurbada aad la qaybsato, laakiinse awooddaadu way kooban tahay. ma awoodid inaad waxyaalo fara badan samayso, laakiinse waxaad awooddaa hal wax oo noloshooda wax weyn ka tari karaya in aad samayso. waxaad ugu deeqi karaysaa dhiig. dhiiggaasi waxa uu badbaadin karayaa noloshiisa, waxa uu badbaadin karayaa nolosha guud ahaan intii markaasi dhibaataysnayd, inagoo ilaahayna subxaana watacaala u baryana. badbaadada ilaahay baa haya, inaguse waxaynu leenahay oo alle ina garansiinayaa tabarucidda. ma garanaysaa waxaynu ku tabarucaynaa waa wax nooleeya, waa waxaan ma garanaysaa oxygentan aynu jirkeennu ku neefsado maskaxdu u baahan tahay, waa waxa haddii eebba xukmahayo kala socodsiiya ee qaada ee sanbabka ka soo qaada ee wadnaha keena ee jirka intiisa kala sii gaarsiiya waa dhiigga. la-aantiina ma noolaan karayno. waxaan markaa jeclahay inaan dadkeenna dareensiiyo muhiimadda ay leedahay dhiig bixintu. walaalayaal ogow, sanad walba waxaa shil inagaga dhinta dad aad iyo aad u fara badan. tusaale ahaan dalkeenna sanadkii 2018 waxaa ka dhacay shilal lagu qiyaasay 1,083 shil. walaalayaal shilalkaas waxay galaafteen naf iyo maal iyo dhaqaale. 61 qof oo dadkii ma garanaysaa ka mid ahaa dadkii shilalkaasi saameeyey, walaal naftoodii waa ay waayeen, xaqii baana ku yimid. ilaahay subxaana watacaala ha u naxariistee. waxaa laga yaabaa 61 qof in intooda badani ay dhiigbax u dhinteen intii loogula soo cararayay goobihii caafimaadka iyo goobtii shil ku qabsaday. walaalayaal waata aynu doonayno inaynu wax ka qabanno mustaqbalka dhow, waata aynu doonayno inaynu helno ambalaasyo ay emergency servicekooda u dhammaystiran yahay. walaalayaal bal qiyaas, cusbitalka Hargeysa oo keliyata qaybta sifaynta keliyaha waxaa ku sugan oo maanta bukaanjiif oo yaala 55 qof. walaalayaal 55 qof waxa loo safeeyaa kaliya sifayn loogu sameeyaa haddii eebba idhaahdo ma garanaysaa 3 cisho wiigiiba. kharashaadka kale ee ka baxa waxa walaalayaal u weheliya inay wiigiiba u baahan yihiin in dhiig lagu shubo. way og tahay oo marka ay xaalad dhiig shubid timaado, eheladeen waxay soo raadiyaan ehelkooda si dhiig loogu shubo. way adag tahay bukaankaagii oo ma garanaysaa bishii 4 goor 5 goor loo shubayo dhiig, eheladaadii way kooban yihiin oo eheladoonu ma badna oo dad tiro badan ma nihiin. marka walaalayaal dadkaas inaynu kurbada la qaybsanno maanay ahayn. miyaan ahayn inaynu inagu intaynu caqligeena kaashanno, inaynu fahanno faa'iidada caafimaad ee ku jirta dhiig bixinta, inaynu inagu cisbitaalada tagno, inaynu inagu dhiig soo bixino. walaalayaal miyaanay ahayn inaynu kurbada isla qaybsanno? miyaanay ahayn inaynu caqliyadeena garaysiino muhiimadda ay dhiig bixintu leedahay? miyaan ahayn walaalayaal? mid kale in xasuusinaya walaal waxay tahay sanad kasta waxaa la yidhaha Soomaalidu waa meesha ugu badan ee dhimashada hooyada iyo dhallaanka. walaalayaal weyn ognahay hooyada uurka leh ee umul raacda xilliga ma garanaysaa umusha ama dhalmadu waxa badan ee ay u dhimataa walaalayaal waa dhiigbax la soo gudboonaaday xilligii umusha, waxa loo yaqaan postpartum hemorrhage. walaalayaal marka laga imaado xirfadaha caafimaad ee lagu badbaadiyo, waxa muhiim u ah in qofku helo inay hooyadu hesho dhiig saacida nolosheeda, ilmaheeda yare adduunka ay kusoo kordhisay saacida. walaalayaal markaa aynu dareenna muhiimadda ay dhiig bixintu leedahay. walaalayaal aynu noqono kuwa isku gargaara, howlo badanna iska caawiya. tani waa howl basiid ah, waa dhiiggaaga oo aad haddii eebba xukmayo sanadkii 2 jeer ku tabarucdo, kii 4 jeer ku tabaruci karayaana wanaagsanba. ogow maanta haddii aan dhiig shubo 57 cisho ama 56 cisho kabacdi mar labaad dhiig waan shubi karaya. ogow haddii xinjirowga dhiiggayga loo baahdo oo aan wiigan shubo, wiigi ku xiga waan shubi karaya.
walaalayaal ogow hal baag oo dhiiga oo aan shubay in 3 nafood lagu badbaadin karayo iyadoo oo dhiiga looga faa'iideysan karayo siyaabo kala duwan walaalayaal ogow dhiiga 3 qaado oo kamid ah ama malgacdood oo kamid ah in lagu badbaadin karayo nolosha ilmo yar walaalayaal ogow in aynu dhiiga siyaabo kala duwan u isticmaali karayno oo aynu magaranaysaa hadii ay xukmaayo aynu nololeheena ku badbaadin karayno walaalayaal hiisigee ka badbaadin naf ahaan barnaamijkeegu wuxuu yahay in soo kordhiyo mobile blood transfusion in uu magaranaysaa dadka iyo ganacsatada iyo cid kasta oo jecel sadaqayn la baxdaba xasuusiyo baahiyaadka cusbitaalada ka haysta magaranaysaa dhiig kaydinta walaalayaal waxa aanu jecelnahay guud ahaan dadka iyo dalka iyo ummadaba inaan dareensino muhiimadda ay dhiig bixintu leedahay walaalayaal fariinteeda ugu dambaysa waxa weeye aan ku leeyahay kumaan weydiinin hadii dhiig mar walba la helayo waxa naga hadlinaysa baahida loo qabo dhiiga garo oo caqligaagu ha ku siiyo hadii aad caafimaad qabto aad buuxiso shuruudaha dhiig bixinta inaad walaal dhiig ugu deeqdo dadka u baahan magaranaysaa xaaladaha kala duwan ee nagu jira caafimaadka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan u mahadnaqayaa qof kasta oo muuqaalkan iga saaciday walaalkay asad oo magaranaysaa muuqaalka quruxda badan leh fududeeyay duubistiisa iyo cabdilaahi waxaan leeyahay idinkana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idinku daro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu